Sakariya Maxamed oo ah nin Soomaaliya oo magangalyo ku joogay wadanka Britain ayaa 57 jeer waxa uu toorey ku dhuftay gabar Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Aamina Maxamed oo ay xiriir wada lahaayeen muddo sanada sida ay sheegtay maxkamad ku taala wadankan Ingiriiska oo ku xukuntay xabsi daa'in kadib markii gabadhaasi ay u dhimatay dhaawacyadaasi tooreyda uu gaarsiiyay. Sakariya ayaa dilka Aamina waxa uu adeegsaday tooreeyo iyo quraarad jubtay sida lagu sheegay warbixintaasi. Horay ayaa Sakariya Maxamed oo ah ninka Soomaaliga ah ee gabadhan dilay uu u jir dilay dhowr jeer Aamino balse mar kastaba dib ayay isugu soo noqonayeen si xiriirkooda halkaas ay uga sii wadaan. Xilligan uu dhacay shilkani ayaa waxa uu ka dhacay koonfurta magaalada tan London ayaa waxa uu ahaa mid naxatin leh sida laga soo wariyay booliska iyo dadka kale ee ka warhaya arintan. Gabadha la dilay Aamina Aadan ayaa lagu sheegay inay ahayd qof shaqaysata aadna u dadaal badan misana si weyn looga yaqaanay telefishinka Al Jazeera xaruntiisa London oo ay ka ahayd sargaalad dhinaca waaxda shaqaalaha ka howlgasha. Sakariya oo da'diisu ay tahay 29 jir ayaa waxa uu qeyrtay dambigaasi waxaana lagu xukumay 26 sano iyada oo taasina sabab looga dhigay kadib markii uu toorey ku dilay gabadhaasi lagu magacaabo Aamino.